gumaysana waana bahdilinti adduuna ku bahdilinti aakhirna ku bahdilinti hoola waswir ama nina ku dilay waxaan dayax ina ku dilma soosa wala soosa wira soosa nina dada soosa hoola nina dada soosa soo dhawaada daawadayaal meel kastoo caalamka ka joogtaan muuqaalka aad arkaysaan waa Najmo oo dadka u garan og yihiin Mrs World isla markaana caan ka ah baraha bulshada dhawaan ku sugnayd magaalada Muqdisho ee caasimadda ummadda Soomaaliyeed Mrs World waxa ku dhacday dhacdo naxdin leh dabadeed markuu isku dayay wiil dhalinyaro ah oo u dhashay beesha Jareerweyne inuu xoog ku galay bajaaj ay saarneed isla markaana uu isku dayay inuu gacmaha la aado jirkeeda hase yeeshee waxay si degdeg ah live uga soo gashay aalada TikTok ah kadibna wiilkii ayaa meesha iskaga cararay maadaama ay muuqaal live ah markaasi ay TikTok ka soo gashay arrintan oo markii dambe dadkii xaafadda deganaa iskugu soo baxeen ayaa sababtay in wiilkii uu guri meesha ku yaalay ku cararo isla markaana Mrs World ay kaga dabahari weyso kaamirada ilaa ay isku soo baxeen beesha xaafaddaasi deganeed oo ku hayb ahaa wiilkaasi dhalinyarada ah kadibna Najmo ama Mrs World ayaa u hajamtay inay talaabo cad ka qaadi doonto maadaama ay sheegatay inay tahay dadka magaalada haysta haddaba muuqaalkan oo dhameystiran inta aan idinla wadaagin waxaan idinka codsanaynaa muuqaalka inaad noo like garaysaan gacanta Ilaahay idin barakeeyo siina shar garaysaan oo asxaabtiina aad la wadaagtaan balna la daawada muuqaalka oo dhameystiran qaybta hoosena aarahdiina ama commentiga kaga soo dhiibta wixii idinla macquul ah gumaysana waana bahdilinti adduuna ku bahdilinti aakhirna ku bahdilinti hoola waswir ama nina ku dilay waxaan dayax ina ku dilma soosa wala soosa wira soosa nina dada soosa hoola nina dada soosa adduuna aakhir saasani ciqaabna ilaa ku dhasho sana ciqaabantiin ما اسكعلي سنة رجعتي عقاب انت سكوفلك أورجين وير صافكو وير ناي عملها بقي وابقوسا فلي على نينا يا بقلي فلي على نينا عصاتي فلي نينا بدا بقوسا انت كحرا كوسا ولا انت كحرا كوسا قديش جراره او فلي gabadha asxaabi waxaan la kulmay gabar Soomaaliyeed oo gabadha u geesineed gabdhaha Soomaaliyeed gabadhan waxa laga yaabaa in gabdhaha kala aragtay oo ku faanaya inay dhowrsan yihiin ama inay doonayaan guur xalaal inay galaan laakiin waa markii ugu horeysay la kulmay gabar ayuu doonaysa in la kufsado waxaad in badan maqasheen gabar la kufsaday gabar la dilay gabadhan Soomaaliyeed waxay leedahay aniga waxaan bajeclahay in la kufsado magaceeda iyo wajigeeda ma intuu sayo laakiin bal wax yar ila dhageysta hay magacaaga magacay nimco maxaa ku diiday inaad guursato ma rabo maxaa ku nacda guurka guura daarabne hay guurka bedelkiisa maxaa jecesha marka kubsigaan jecelahay ma ilaahay baa kula og inaad jeceshaan in lagu kubsado maxaa ku jeclaata kufsiga maxaa ku jeclaata ku doorbid kubsiga yani guurku waa ka fiican yahay muxuu ka fiican yahay qodob hal iyo labo muxuu ka fiican yani ubada dhalay ubadkiyaa lagu khashada nin jireer naag ma beelo laakiin hadaa shakhsigaad cunug ku dhishid hooyada aabaha kula biilaymo laakiin cunugan waxa lagu leeyahay ninaa dhalay u geey orod ninka kugu biilay laakiin cunuga hadii inta lagu kufsado laga dhalo macnaha adaa haysanaya cid kugu la xisaabtay ma jirto haye Soomaalidana haday khalad tahay way ka soo jawaab kartaa haday saxan yahayna wax way soo diri karaan ma guurku waa raxmad iyo naxariis iyo wada noolaansho is jacayl waay kufsiguna waa dhibaato iyo halaag iyo xanuun iyo dhibaato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا صحابي برامجكني 5 دقيقة iyo 5 eray oo dhiirigelina maanta waxaan dul istaagi doonaa oo u diyaarinay barnaamijkani in aan ka hadalno waxyaabaha dhibaatooyinka ay keenaan niyadjabka ama in dib loo milicsado waxyaabihii la soo dhaafay qofka oo isku mashquuliya xaalado la soo darsay waqti hore oo aad istiraahdo kamaad kabsan dhibkaas ku geysay mahadha ay ku reebto ta kale hormarkii uu qabsan lahaana caqabad ay ku noqonaysaa because
because dhibaato ayay ku noqonaysaa haddii aad noqotid qof mar waliba la liicaya ama la luudaya xaalad hal mar la soo daristay xilliga ay la soo daristayna la soo dhaafay waxay noqonaysaa mid aan halka uu joogo weligii dhaafaynin hankiisuna meel la gaarsiisnayn muhiimadu waa in aad samaysid karti iyo adayg aad ku ilowdo waxyaabihii la soo dhaafay cashar iyo wacyigelin ay kugu noqoto aan mar labaad kugu dhicin waa inaad noqotid qof isku filan adduunyadu waa imtixaan nolosha sideedaba waa taxane waa imtixaan bini'aadanka lagu imtixaamayo waa inaad isku daydid maalintii waqtiga maanta oo kale waagaa baryay habeen ayaad maraysaa waad sii seexanaysaa waa inaad xisaabtantid aakhirana maxaa u shaqaysatay adduunna maxaa u shaqaysataa already waxaa tahay qofka ugu wanaagsan dunida haddii aad tahay qof maalin kasta oo ilaahay nabad iyo caafimaad ku soo geliyo ka xisaabtamaya waqtiga soo galay wuxuu ku qabsaday aakhiriya adduunba ka fikiraya qofka dunida ugu wanaagsan ayaa tahay haddii aad tahay qof xiriirka ilaahay isagoo u dhexeeya adkeeya oo dhibaato kasta oo la soo darista ilaahay sacabada ka hortaaga oo barya qofnaba ha isku dayin inaad dhibaatadaada u sheegatid qofnaba ha isku dayin inuu garabkaasi iyo xaalad markaasi kugu taagan ilaahay mar waliba isku day inaad garabka koowaad weydiisatid bulshadana wixii kale markaasi ma dhaafaana ee is leedahay waa ku muhiim aad kala hadashid qofka markaasi kugu xiga faamilka muhiim weeyaan inaad mar waliba ilaahay xiriirkiisa wanaajisid si nolosha kugu qurux badnaato si aad u noqoto qof isku filan hana xasuusan waxyaabaha lasoo dhaafay hana ku mashquulin qof kale oo wax qabsaday hana isku dayin inaad istiraahid heerkan maanta aad joogtid hebel iyo hebel iyo hebel heerkaasay marayaan way kaa koreeyaan weligaa khayrkaa indhahaagu yay qabanin isku day inaad kor eegtid horay eegtid weligaa aadan dib u laabanin ha isku dayin noloshaada inaad nolol kale barbar dhigto in aad adiga iyo qof kale tartan siiso ha isku dayin tartanku waa inuu gaar ku ahaado halganka nololeedna waa inaad noqotid qof aan ku fashilmin wax kasta way dhacaan haddaad guul daraysatid ha isdhiibin horey u soco sii xooji guul weliba ha ku noqoto hamigaaga tii soo dhaweyn lahayd farxadaadana joogtee because waa caafimaadkaagana way anfacaysaa cadowgaagana way dilaysaa isku day dadka oo dhan inaad ka dhigato dad wanaagsan bulshada si fiican ula dhaqan aad ba u mahadsantiin barnaamijkeena sidaasi ayuu maanta inoogu soo dhamaaday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada saxaabi barnaamijkeena 5 daqiiqo iyo 5 eray oo dhiirigelina maanta waxaan dul istaagi doonaa oo u daaran yahay barnaamijkeenani in aynu ka hadalno waxyaabaha dhibaatooyinka ay keenaan niyad jabka ama in dib loo milicsado waxyaabihii lasoo dhaafay kow qofka oo isku mashquuliya xaalado lasoo darsay waqti hore oo aad istiraahdo kamaad kabsan dhibkaas kuu geystay mahadha ay ku reebto ta kale horumarkii uu qabsan lahaana caqabad ayay ku noqonaysaa because dhibaato ayay ku noqonaysaa haddii aad noqotid qof mar waliba la liicaya ama la luudaya xaalad hal mar la soo daristay xilliga ay la soo daristayna la soo dhaafay waxay noqonaysaa mid aan halka uu joogo weligii dhaafaynin hankiisuna meel la gaarsiisnayn muhiimadu waa in aad samaysid karti iyo adayg aad ku ilowdo waxyaabihii lasoo dhaafay cashar iyo wacyigelinna ay kugu noqoto aan mar labaad kugu dhicin waa inaad noqotid qof isku filan adduunyadu waa imtixaan nolosha sideedaba waa taxane waa imtixaan bini'aadanka lagu imtixaamayo waa inaad isku daydid maalintii waqtiga maanta oo kale waagaa baryay habeen ayaad maraysaa waad sii seexanaysaa waa inaad xisaabtantid aakhirana maxaa u shaqaysatay adduunna maxaa u shaqaysataa already